kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dunida aamusan oo ah barnaamij aad haadir iyo jeer kala socotaan sirsomali.com ama warbaahinta sir Somali Investigative Reports. waraysigan maanta idin haynaa waa waraysi ka duwan in badan waraysiyaad aragteen ama aad daawateen. waxaa halkan ku kulmay dadyo kala duwan. waxaa ku kulmay dunidii hadlaysay iyo dunidii aamusnayd. siday codkooda idin soo gaarsiinayaan iyo sidaad u maqli doontaan gadaal baan idinka sheegi doonaa, laakiin marka hore aan iskiin baro martida barnaamijkan igala qayb galaysa oo saan idiin sheegay u badan dadka aan waxba maqal. waxa dhinacayga midig fadhiya oo igu soo xigta waa Ifraax Siciid Wacaale, waxa ku xigta waxa weeyaan Hodan Xuseen Cumar, waxa u baalaysayaan Ciise Ibraahim. dhinacayga bidixda waxa fadhiyaan iskiin baro waa Khalid Cali Xuseen, waxa ku xiga waa Axmed Cabdilaahi Max. dhammaan intaan soo sheegay waa dunida aamusan ama dadka aan waxba maqal, balse maanta diyaarka waa in codkooda idin soo gaarsiiyaan. waxaad isweydiin karaysaan sidee codkooda idin soo gaaraya ama ay u hadli karayaan dadka aan waxba maqal ama dhagahala. waxaa koonaha fadhiya oo u baaleeya Axmed Cali Maxamed Axmed Nimcaan. waa qof isagu hadla dhaga qaba, hase ahaatee bartay luuqadda aamusan. waxa uu ka tirsan yahay bahda sir ama Somali Investigative Reports. waxa uu diyaar u yahay maanta inuu codkooda iyagoo faraha ku hadlaya isagoo cod ahaan idinku soo gaarsiiyo. aan si kale u dhigo waa turjubaanka barnaamijka maanta. su'aasha horeysaan ku bilaabayaa waxa weeyaan Khalid ayaa ka jawaabaya. su'aashuna waxay tahay heerkaaga waxbarasho ama guud ahaan marka la suukin wada qaado heerkiina aqooneeda waxbarasho muxuu yahay Khalido? Khalid waxa uu leeyahay heerka waxbarashadeeda aad bay u fiican tahay. sidoo kale waan ku faraxsanahay inaanu gaadhno markaa heerka secondary school. waxa kaloon rajaynaynaa inaan gaadhno markaasi heer jaamacadeed. sidoo kale inaan bulshadayada wax la qaybsano waanu rajaynaynaa. su'aasha labaad waxaa ka jawaabaysa inuu weydiinaynaa waxa weeyaan Hodan. dhammaantiin ma arday baa tiin Hodanay mise waxaa idinku jira kuwa shaqeeya oo xoogsada? maya, dhammaantay ma shaqayna, laakiinse waxaan u badanahay arday, mararka qaar baan shaqaynaa. sidaynu ognahay ma jirto warbaahin leh qayb dadkan aan waxba maqal la hadasha. tiifiyadoo kale ma jiraan barnaamijyo ay kula hadlaan dadka aan waxba maqal si ay u fahamsiiyaan wararka. sidoo kale marka warku dhacayo ama warka la sheegayo ma jiro barnaamij tiifiyadeenna af Soomaaliga ku hadlaa ay u gudbiyaan waxa ay ka sheekeynayaan iyagoo kula hadlaya luuqadda aamusan. waa sababta sir bahda sir ama Somali Investigative Reports ay u sameeyeen barnaamijkan dunida aamusan si ay codkooda u soo gaarsiiyaan dunida kale. su-aashu markaa waxay tahay, waxaan weydiinayaa ay ka jawaabaya waa Khalid Cali Xuseen. su-aashu waxay tahay sidee wararka agihiina ka dhacaya iyo dalka waxa ka socda aad ula socotaan maadaama aanay jirin warbaahin aad kala socon kartaan oo luuqadiina ku hadasha marka laga reebo bahda sir? waa su'aal wanaagsan. in badan wararka bulshada dhexdoodu wayna dhaafaan oo ma fahano. sababtuna waxa ay tahay waayo ma haysano turjumaano ku sugan markaa tiifiyada. sidoo oo kale kaliya waxaan ku eegnahay inaan akhrino jaraa'idka. kole bulshada Soomaalidu siday u badan tahay dadka aan waxba maqal iyo kuwa inta leh, tusaale ahaan dadka cagahala, dadka indhahala iyo dadka ay ku yimaadeen amarada Ilaahay. waxaa lagu tiriyaa bulshada Soomaalidu inay tahay bulsho aan inta badan u roonayn marka laga hadlayo habka ay ula dhaqmaan. sidoo kale ugu magac bixiyaanba hebel waa dhagoole, waxaa sidoo kale jira hebel waa cagoole, hebel waa gacmoole, waxyaabo noocaas ah. su-aasha waxaan weydiinayaa waxa weeyaan Axmed Cabdilaahi Maax baan weydiinayaa su-aashaan weydiinayaa waxay tahay ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo aad kala kulmataan bulshada inteena kale marka laga hadlayo dunidiinan aamusan ama dadkiinaan waxba maqal? waxaan haysnaa dhibaatooyin. anagu lama ciyaari karno dadka dhagaha qaba meelaha garoomada ah ee la isugu yimaado. sidoo kale ma fahmi karno waxyaabaha iyagu ka hadlayaan. iyaguna sidoo kale nama fahmi karaan markaan isticmaalino sign language-ka ama luuqadda dhagoolaha ah. anagu uma sheegi karno iyaga dhibaatooyinka anaga naga haysta xagga bulshada.
daawadayaal waxaa naga xusuusin ah in dadka halkan nala fadhiya ee ka tirsan dunida aamusan dunida aan u bixinay ama dadka aan waxba maqal waxaa ku jira hal abuuro waxaa ku jira qorayaal sidoo tusaale ahaan dhinacayga bidix waxa fadhiya Khaalid Cali Xuseen waa nin hal abuura suugaantiisa iyo maansooyinkiisa wuxuu ku gudbiyaa qoraal sidoo kale maqaalada iyo qoraalada uu ku soo gudbiyo dunida aamusan ee bahda sir waxa uu kaga hadlaa arrimaha iyo dhibaatooyinka intiina rabto inay dheehaato ama ay la socoto waxaad booqan kartaan website-ka sirsomali.com saasho dambeysaan weydiiyay Khaalid Cali Xuseen Khaalidow ma jirtaa cid aad isleedihiin doorkoodii malaha way u baahantay inay buuxiso ama ay ka gaabso gaar ahaan dowladda Soomaaliland ma jirtaa wax soo jeedina oo aad u jeedinaysaa waxaa jira baahiyo fara badan oo aan uga baahannahay dowladda waxaan u baahanay in loo dhiso iskuul qur-aanka lagu barto iyo dhismo iskuul oo noo gaara garoon aan ku ciyaarno sidoo kale waan u baahannahay iyo in loo sameeyo turjumaan ku sugan markaa tviyada bulshadu ay leedahay daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dunida aamusan oo alaabaad kala socotaan shabakadda warbaahinta ee sir ama Somali Investigative Reports oo maanta idin soo gudbinaysay codka dadka aan waxba maqal ama dhagoolayaasha ah kuwaasoo codkooda ku hadlayay dhammaan inta Soomaaliga ah ee aan dadka wax maqal ah ama dadka dhagaha la u taqaanaan gaar ahaan inta ku nool Somaliland oo codkooda idin soo gaarsiinayay waxay ka hadlayeen marxaladaha kala duwan iyo nolosha ay ku sugan yihiin waxaana filayaa inaad ka bogateen codkoodana aad maqasheen waa anigoo Barkad Maxamuud Kaariya waxaa sidoo kale mahadnaq gaar gaarsiinaya Axmed Cali Maxamed Axmed Nimcaan oo turjubaanka isku keen xidhayay inteena wax maqasha iyo dadka dhagaha la aad u taqaanaan ama dadka aan waxba maqal sidoo kale waxa mahad gaar aan gaarsiinaya Khadar Cabdullaahi Dirir oo ah farsamada iyo duubista sidoo kale hagida barnaamijkan dhammaantiin waxaan idinkaga tagnaa dhammaantayo salaamu calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قولوا عن عدوك وابو نولو الوناكسن ايو برواقو nabad lagu wadaago akwaaro wadankeena guul wacan cadowka waafo nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaaro wadankeena waa wadnihii jirkeena waraabinay dhiigo aan ku ardi